iyadoo roobab lagu diirsaday ay guud ahaanba ka horeen deegaano badan oo ka tirsan gobolka Sanaag lagagana raystay haraadkii iyo hanfigii abaarta haddana waxaa jira baahiyo ay la ildaran yihiin dadka abaartu xoolahoodii kala afatay deegaanka Ceelcadde waxa uu in ka badan 55 kiiloomitir dhinaca waqooyi ka xiga degmada Garadag waa deegaan aad u ballaaran waxa ku soo barakacay boqolaal qoys oo abaartii ku caydhoobay ma haystaan adeegyada aasaasiga ah nolosha aadamaha sida caafimaadka waxbarashada hoyga iyo manfaca la quuto haddaba mar uu Honkebel TV booqasho ku tagay ayaa maamulka iyo mas'uuliyiinta tuulada Ceelcadde waxa ay ka warbixiyeen xaaladda ay ku sugan yihiin iyaga oo sheegay inay wada qaloocan oo buuralaya ku yaaleen aanayna soo gaadhin xukuumadda iyo cid kasta oo horumar wada waxayna baaq u direen cid kasta oo dadkan baahiyahooda wax ka qaban karta dadkaas oo ka soo guuray miyiga dadkii oo li jiray ah ee buuralada waliba u badnaa ah dadkaas oo xoolihii ka baxeen ay ka baxeen markii xoolihii ka baxeen halkii cid ugu dhaweyd ama tuulo ugu dhaweyd ama xagaaf ugu dhaweyd ay dan moodeen bay soo degeen dadkaas oo aad iyo aad tiro badan dadkaas oo ah dadkii dadka ugu xoolaha badnaan jiray waxa weeye ayaanu doonaynaa halka saaka inaanu uga gudbino warkooda dawladda iyo hay'adaha toofalka iyo xisbiyada kuwa mucaaradka ah iyo kuwa maxaafadkaaba adigu shalay waxoogaa roob aan helay waxoogaa roobkeena galay dadka meesha jooga ee soo guuray laana sida odayaashu ka dhawaajiyeen waxa ku jira dad caameeyaala dad umulo hooyooyin oo uur leh iyo kuwa umulay caruur yar yar ii sheeg dad curyaama dad aad iyo waqtigu aad iyo aad u halakeeyo inta daran isla markaana waxay roob ka galaan ma haystaan sida odayaashu hore u taabteen dadku marba meel bay u guuralo alaabtoodii way luntay xoolina waa ka raacay halka markay joogto arinta ugu daran ee hadda ugu aad iyo aad xoog weyn wax weeye ii sheeg 3 lambar weey ka koobaad horta raxmada hadda Soomaaliya meesha galahay ma haystaan waa talabaad rug caafimaad meesha ma laha oo iyada umusha loogama helayo xabad dhig joojina midkiniina oo xuma jabina lagama helayo ii sheeg shuban baa jira ilaahay naga nabad geliyo xabad muxuu ahaa dawadii shubanka ma hayno xabad faleema ma hayno wax fuuqbayo aris ma hayno arrimaha noocaas ah ayaa jira halka markay marayso wax umulisaana male qaarkood way ku umuleen meesha way ku dhig baxeen aad iyo aad ba xaaladoodu halis u noqotay kuwa intaas oo kiisoo meesha ku dhintay baa jira laana Garadag oo 55 kiiloomitir noo jirta ayaa noogu dhow meel xanaano iyo rug caafimaad dhinaca kale ayaa iyana waxa ka hadlay qaar ka mid ah bulshada barakacayaasha ee deegaanada miyiga ka yimi waxa ayna codsadeen inay xukuumaddu hoos u eegto ay u dhisto goobo caafimaad iyo waxbarasho waxaan kugu dhigaa toon dixara roobki ka qooyo waxa laale waxa dunyada waxay ka galaan ma haysano iyo waxa laale waxay cunaan waxa laale waxay huwadaan waxa laale waxay wax ku karsanaan digsiyada xitaa ma sitaan waxa weeyaan waxa aanu leenahay dawladeedaha samafalka ina degdeg loo gacan qabto oo nala soo gaadho oo dadkaana la waxaanu nahay dadkii soo caydhoobay waxaanu nahay dadkii barakacay waxaanu nahay dadkii afarta baynsho marba meel loo raray ee reer miyiga ah baanu nahay xoolii way naga lumeen geel iyo ari waxba noogama hadhin waxa weeye buulashii aqaladii way naga lumeen meel allaale meel aan kaga warrano ma garanayno waxa weeye dawladda waxaanu ku codsanaynaa Somaliland madaxweynaha Ahmed Maxamed Siiraan waxaanu ku codsanaynaa in gurmad naloo sameeyo in waxa degdeg naloo ku sameeyo waxaanu cunno iyo waxaanu huwano iyo wax kastaba wixii naloo heli karo in naloo keeno waxa weeye caruuru iskuulada nooma tagaan xabad waxaanu ugu iibsano waanu weynay buuga waanu weynay waxaanu buug ugu iibino waanu weynay waxaanu qalin ugu iibino waanu weynay iskuul nooma tago ciyaalku waxa weeye guryaha Honkebel TV